السلام عليكم إن شاء الله فيديوga maanta waxaan uga hadli doonaa sagaalka dabeecaha ama temperament traits oo ilmaha laga helo taasoo fahmideeda marka noo fududeynaya fahmida dabeecooyinka ilmaha iyo habdhaqankooda insha Allah marka videoga wuxuu ahaan doonaa video taxane ah maanta waxaan ka hadli doonaa qaybta koowaad oo dabeecooyinkaas sagaalka ah ka midda ugu horeyso taasoo ah activity level ilmaha activity levelkooda mise dhaqdhaqaaqooda mise xarakadooda insha Allah marka ilmaha waxay u kala baxaan activity levelka marka loo fiiriyo saddex kuwana waxaa waa ilma active ah maasha Allah oo iska budboodka jecel oo fadhiga dhibaayo oo taasoo marka sometimes ilmahaas dhib ku noqonayso iskuulka markay aadaan inay follow garayaan iskuulka oo fadhiga requireka ah oo maanta la fadhinayo ilmahaas waxaa laga yaabaa in macluumooyinkooda ay dhahaan ilma cunugaagi maasha active waaye maantana wuxuu jecelahay inuu oo budboodo ilmahaaska also waxay hooyooyin ahaan mise waalidiintooda markay meel u wadaan oo require garaynaya inay fadhiyaan dhib ku noqoto oo budboodkooda adiga dhaqdhaqaaqooda mar walba la arko amoor ah ilmahaas marka waxay u baahan yihiin meel ay energygaas ay ku gubaan safe ah oo markasta ilmahaasna khatartooda iska badan waxay u baahan yihiin yani more safety in la ilaaliyo oo supervision ay u baahan yihiin maadaama ay dhaqdhaqaaqooda badan yahay khatarta ay ka imaan karta dhaqdhaqaaqooda iska badan ilmahaas marka waxay u baahan marka fahanka ilmahaas wuxuu nooga fududeynaa inaan ogaano cunigan budboodkiisa inay ahayn wuxuu isaga iska dhigdhigaya laakiin wax isaga ilaahay temperamentig waxaa la ogaaday study la sameeyey oo 1950 oo 30 sano ay ka badan socotay dad badan oo la study gareeyay oo ilmo yaryar ah ilaa waxay socotay studygaas ilmaha dadkaas more than 10 years ayagoo jiraan waxaa la arkay markaas ilmahaas oo babyaalka lagu bilaabo researchigaas mise baxdigaas in ilmaha ay u kala baxaan sagaalkaas trait insha Allah maanta midka koowaad oo ah activity aan ka hadloono marka waxyaabahaas waxaa la arkay waxyaabo iska dhignaya inaan ahayn laakiin waxyaabo waxaa waa ilmaha ayni bini'aadinka anaga adultiga ama dadka waaweynba waa qabnaa traitkaas laakiin badanaa ilmaha loo use garayaa taasoo marka dadka ilmaha la shaqeynaya mise dadka waalidiinta ah u fududeyta fahmida ilmaha marka ilmaha oo lowga activities ah oo mise dhaqdhaqaaqooda yar yahay oo maanta dhan iska jecel inay kursi iska fadhiyaan mise TV iska fiirsadaan mise budbood aan jeclayn ilmo waxaa anoo kale waxaan qabaa cunug oo labo waxaan qabaa actually midna active ah midna low ah ka marka low active ka badanaa ma jeclo inuu budboodo mise inuu walaalkiisa la ciyaaro wuxuu jecel yahay maanta wuxuu dhibaa iga qabo maraba inaan la ciyaaro maanta dhan ma jeclo marka kan kale oo la lagdamaayo wuxuu jecel yahay spacekiisa wuxuu jecel yahay inuu gacmaha maanta dhan puzzle iyo wax ka ciyaaro mise legos wax isku rakibo marka xataa axyaanan markaan banaanka aadayn wuxuu ku dhahaa aniga wax iisoo qabto aniga ma idin raacay oo drive through kale wax marka laga soo gadanayo ma jeclo baxitaankaas iyo binaankaasba ma sii xiisay sida ilmaha kale u xiisayaan wuxuu marka kaasoo kale marka maanta aniga aan fahansanayn mise aanan pushgaraynin oo aanan isku daynin aan xoogaa activitykiisa aan zaa'idiyo waxay keenaya cunugaas inuu weightkiisa zaa'ido because maanta uu iska fadhiyaa maadaama uu energy uu barnagareynaynin mise uu guweynin waxaa laga yaabaa ilmahaas inay weigtkooda uu zaa'ido so markaas waxaan isku dayaa inuu energygiisa xoogaa active aan ka dhigo so uu barnagareeyo active energygiisa ilmahaasoo kale marka hadaan faraha laga qaado also waxay iskala qabsanayaan fadhiga badan waxay sometimes waxay xataa laga yaabaa inay ilmaha kale adeegsadaan mise hooyada adeegsadaan ay dhahaan iisoo qabo kaas ayna jecleen xataa waxyaabaha iyaga naftooda u samaysan lahayn inayna samaysanin marka ay ka dhigto ilmo oo iska maanta iska low energygood ah marka waxaa loo baahan yahay marka midka energyga lowgiisana aan mid xun ma ahan kan activitykiisa mise xarakadiisa badan tahana ma xumo labadooda waxaa waaye waa wax ilaahay hab ilaahay u dhaliyay oo ilaahay u sameeyey laakiin waxaa muhiim ah inaa ku aqbalno say yihiin ilmaha samayskooda ilaahay u sameeyey yahay inaan accept garayno the way they are laakiin marka aan isku dayno as a waalid hadafkeeda ahaado tartiib medium dhexdhexaad inaan ka dhigno activities guidekana ma fiicno all the time slow oo low activitykiisana ma fiicno caafimaad ahaan cunugaas wuxuu u baahan stretch inuu sameeyo wuxuu u baahan inuu active noqdo kan activities ku badan waxaa loo baahan yahay inaa cuntadiisa oo cuntada activityka zaa'idinaya oo maybe cuntada sokorta inaan kasii yarayno mise aan ogaano waxyaabaha oo energygiisa meeshuu ku gubi lahaa aan barno energyga waxyaa waqti la gubaa jirto space aan provide garayno safe ah marka aan safetygiisa supervision more siino
ilan maadaama xarakadooda badan yahay khatartooda iska badan maanta la fiiriyo waxay u baahan yihiin ilmahaas oo isha lagu hayo especially markay yaryihiin si ayna naftooda aynan damage garaynin mise dhib u soo gaarsiinin marka fahmidda xarakooyinka ilmaha waxayna tusinaysaa saan sheegay inaan ilmahana aqbalno the way they are ilmaha cunug walba unique waayo the way dabeecadiisa qaarka u ah inaan marka cunuga oo dhaqdhaqaaqiisa bayaan dhihin oo dhaqdhaqaaqaagu badan too much aad tahay kaas haddaan saas dhahna cunuga wuxuu iska dhaadhicsanaa inuu dhaqdhaqaaqiisa wax xun tahay laakiin haddaan oh you have energy aa leedahay energygaaga xagga ku use garaynaya how do you want to burn your energy maxaa rabtaa inaad samayso energyga aad ku bangaraysid energyga kaale iska bixi orod kan lowga anaan dhihin cajislow aad tahay maanta dhan kursigaa fadhinaysa aan dhihin laakiin aan dhahno let's use energy korkaa ku jiro burnagarey maadaama maanta dhan fadhiisaday wax activity sameey mise waxyaaba aan tartiib ah u qalqaalino si aan tartiib cunigaasna ilaa hal mar qofka isma bedeli karo muhiimadda hadafkana ma aha in cuniga la bedelo laakiin muhiimad waxaa waa in la fahmo dabeecadiisa oona dhexdhexaad middle balance loo sameeyo oo si balancega cunigu ku noqonaya mar walbana ogaawo qof walbaba waxaa waa dabeecadiisa mar walba celinayna even if we try mar walba cuniga dhanka oo ilaah u sameeyo u badana laakiin waxaa muhiim ah marka inuu cuniga fahmo wuxuu yahay oo aad dhexdhexaadi ah isku daysa as a waalid insha Allah marka videodan waxaan uga hadli doonaa cuniga madax adag iyo wuxuu ku fiican yahay madax adeega waxyaabo benefit ay leedahay waxyaabo of course negative way leedahay mise waxyaabo difficult parenting oo dib ku noqonaysa waalidiinta macaamilada ilmaha markay noqoto cuniga madax adag so waxaan insha Allah next video aan ka hadli doonaa cuniga madax adag sida lagu fahmaa dabeecooyinkiisa sida marka lagu caawiyo cunigaas inuu medium noqdo oo dabeecadiisa madax adeegiisa zaid noqon la socdo insha Allah soo dhawaada thank you so much